وسلامتين أصحابتك kusoo dhawaada barnaamijkeena 1 by 1 oo aan ku soo qaadan doono wararka iyo warbixinihii ugu dambeeyay waxaan wadeegi doonaa heshiisyadii la sameeyay saacadihii ugu dambeeyay kuwa la filayay inay dhacaan iyo xanta suuqa kaliibsiga ciyaartoyda aynu ku bilownay sida ay sheegtay qaar ka mid ah warbaahinta Ingiriiska ciyaartoyga kooxda Brighton ee Marco Correa ayaa heshiis hordhac ah la gaadhay kooxda Chelsea waxaana la sheegayaa inay isku afgarteen shuruudaha shakhsiga ah kooxda iyo ciyaartoyguba haddaba ciyaartoygan oo markii hore lala xiriirinayay ama ay rabtay kooxda Manchester City ayaa waxaa dhamaaday heshiiska u dhixiyay ama wada hadalka u dhixiyay kooxaha Brighton iyo kooxda Manchester City kadib markii ay isku afgaran waayeen qiimaha ciyaartoyga oo kooxda Manchester City ayaa rabtay in ciyaartoygan ku soo iibsato 40 milyan halka ay kooxda Brighton rabtay inay ciyaartoygeeda ku fasaxdo 50 milyan haddaba waxaa la sheegay inay kooxda Chelsea diyaar u tahay inay ciyaartoygan ku Correa 50 milyan ka bixiso dhinaca kale kooxda Man City oo doonaysa bedelka ciyaartoygeedii hore ee Zinchenko kadib markii ay kooxda ku fashilantay la soo saxiixida ciyaartoyga ku Correa ayaa la sheegay inay kooxda Manchester City isha ku hayso ciyaartoyga daafaca bidix uga ciyaara kooxda Stuttgart ee Borna Sosa sidoo kale ciyaartoyda isha ku hayso kooxda Manchester City ee ka ciyaara booska daafaca bidix waxaa kamid ah ciyaartoyga kooxda Wolves ee Ryan Aït-Nouri halka uu goolwadaha kooxda Leicester City ee Schmeichel uu ku biiri doono kooxda Nice ee ka ciyaarta wadanka Faransiiska waxaana la shaacin doonaa heshiiskan saacadaha soo socda iyadoo ay kooxdu ka bixisay ciyaartoygan 1 milyan oo euro sida la sheegay kooxda Chelsea oo wada hadal kula jirto kooxda Leicester iyagoo raba inay daafaca dhexe ee Fofana kala soo wareegaan ayaa waxaa la sheegay inay labada kooxood ay u dhaxeeyaan 20 milyan oo dalabka ay kooxda Chelsea ka soo gudbisay ciyaartoyga iyo dalabka ay rabto ama qiimaha ay rabto inay kooxda Leicester City ku iibiso ciyaartoygeeda ayaa farqiga u dhaxeeya ayaa 20 milyan oo euro haddaba kooxda Chelsea ayaa diyaar u ah inay wax yar ku darto ama ay kor u qaado qiimaha ay ku dalbanayso ciyaartoyga Fofana isla kooxda Leicester City ayaa la sheegayaa inay isha ku hayso ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Lyon ee Hossam Aouar kadib markii ay kooxdu ku fashilantay ama ay awoodi weyday inay heshiis kordhin u sameyso ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara ee Maddison iyadoo ay weli socdaan wada hadallada u dhaxeeya ciyaartoyga Maddison iyo kooxda Leicester City haddaba kooxda Leicester City ayaa ciyaartoyga Hossam Aouar isha ku haysa oo filaysa inay ciyaartoygan wada hadal la furto ama ay la soo wareegto haddii ay isfahmi waayaan ciyaartoygeeda Maddison oo xilliga haddii uu baxo ay si ay kooxdu la soo wareegto sida la sheegay xiriirka kubadda cagta horyaalka Ingiriiska ayaa qorsheynaya inay baahiso codadka garsoorayaasha kulanka iyo garsoorayaasha faarka u dhaxeeya xil ciyaareedka dambe haddaba barnaamijkan ayaa ah inay xiriirka kubadda cagta horyaalka Ingiriisku inay marka lagu guday jiro kulanka gaar ahaan garsoorayaasha iyo calan wadayaasha ama garsooraha dhexe iyo calan wadayaasha iyo xataa garsoorayaasha faarka hadallada ay ku wada hadlayaan in la duubo oo hadhow markii uu kulanku dhamaado in la soo bandhigo gaar ahaan waxa la filayay in barta YouTube la soo dhigi doono kulanku markuu dhamaado oo waxa la duubaya waxay ku wada hadlayaan garsooraha marka uu faarka soo eegayo garsooraha dhexe waxay ku wada hadlayaan garsoorayaasha kale ee iyaguna qaabilsan qaybta faarka haddaba arrinkan ayaa waxaa soo dhaweeyay kuwa ka mid ah kabtanada kooxaha horyaalka Ingiriiska ka ciyaara ee Premier League waxaana ay xiriirku arrinkan u sameynayaan sidii ay u yareyn lahaayeen shakiga ka taagan garsoorayaasha iyo musuqmaasuqa halka uu ciyaartoyga kooxda PSG ee Idrissa Gana Gueye uu soo gaadhay Merseyside si uu tijaabada caafimaad ugu maro kooxda Everton oo ciyaartoygan ayaa la filayaa inuu ku biiro kooxda Everton iyadoo ay xidheen qodobo yar oo ku saabsan heshiiska kaas oo u dhaxeeya kooxaha PSG iyo Everton inta kadib Idrissa Gana Gueye ayaa si rasmi ah ugu biiri doona kooxdiisa cusub ee Everton oo markii hore u ciyaari jiray ka hor intaanu ku biirin kooxda PSG dhinaca kale kooxda RB Leipzig ayaa isku diyaarinaysa inay dalab rasmi ah u gudbiso kooxda Chelsea iyagoo oo raba inay si rasmi ah uga soo wareegaan ama ay uga soo iibsadaan ciyaartoygeedii hore ee Timo Werner sidoo kale sida ay qortay qaar ka mid ah warbaahinta Spain ayaa ciyaartoyga Cristiano Ronaldo waxaa diiday kooxaha kale ah Bayern Barcelona Napoli Chelsea iyo Atletico Madrid waana fashilmeen dhammaan wada hadaladii u dhaxeeyay kooxahaas iyo wakiilka ciyaartoyga haddaba waxaa la filayaa inuu Ronaldo ama arrinkaasi waxa uu sheegaya inuu Ronaldo sii joogi doono kooxda Manchester United waxaa sidoo kale la filayaa inuu Ronaldo aanu ciyaari doonin kulanka ay kooxda Manchester United la ciyaari doonto kooxda Brighton ee horyaalka Ingiriiska Premier League bal markana aynu eegno sida ay qortay warbaahinta Madrid ciyaartoyga Real Madrid ee Miguel Gutierrez ayaa ku dhow inuu ku biiro kooxda Girona Real Madrid ayaa iibin doonta 50% qiimaha ciyaartoyga waana mid la mid ah iibintii Kubo sidoo kale Real ayaa hadhow ciyaartoygan soo ceshan karta haddaba qorshaha heshiiskan ayaa ah inuu ciyaartoygu khibrad helo oo uu waqti badan soo
ciyaaro si uu hadhow ugu soo laabto kooxda sidii ku dhacday ciyaartoyga Carvajal oo kooxda Real Madrid ayaa ciyaartoygeeda iibisay ama ku wareejisay kooxda Girona waxayna la mid ahayd heshiiskaasi kii ay ku dirtay Kubo oo kooxda ciyaartoygan hab free ah ku dirtay marka kooxda hadhow waxay yeelan doontaa in 50% qiimaha lagu iibiyo ciyaartoyga ay kooxdu yeelato ama kooxda haddii ay ciyaartoygan u baahato inay dib u soo ceshan karto waxaana uu ciyaartoygan u saxiixi doonaa kooxda Girona heshiis 5 sano ah sidoo kale waxay sheegeen inaanu ciyaartoyga Odriozola ka mid ahayn qorshayaasha tababaraha Ancelotti ee xilli ciyaareedka dambe isagoo ciyaartoyga Odriozola diyaar u ah inuu xagaagan ka baxo kooxda ayaa waxa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ciyaartoygan loo soo bandhigay kooxda Inter Milan dhinaca kale warbaahinta Catalonia ayaa daawacday inaanu ciyaartoyga Frenkie de Jong aanu diidin ku biiritaanka kooxda Manchester United balse uu ciyaartoygu diiday inuu wada hadal la furo koox ama uu cid kale wada hadlo ka hor inta aanu ogaan ama ka hor inta aanu garan mushaharadii uu ku lahaa kooxda Barcelona oo ciyaartoyga Frenkie de Jong ayaa kooxda Barcelona ku leh 20 milyan oo mushahar aan la siin ah sidoo kale de Jong ayaa raba inuu ogaado abaalmarinta kadib heshiiska cusub oo ciyaartoygan ayaa raba ka hor inta aanu ka tagin kooxda inuu kooxda Barcelona ka qaato ilaa 20 milyan oo ku lahaa oo ahayd mushaharo hore oo aan la siin sidoo kale de Jong ayaa raba kooxda cusub ee heshiiska uu saxeexayo abaalmarinta ay siinayso kadib marka uu heshiiska u saxeexo ama uu ku soo biiro kooxda isla kooxda Barcelona ayaa la sheegaya in ciyaartoygeeda Sergio Dest u soo bandhigtay kooxda Chelsea si ay kooxda Chelsea hoos ugu dhigto qiimaha ciyaartoydeeda Azpilicueta iyo Marcos Alonso ay rabto kooxda Barcelona waxa la leeyahay iyaduna inuu tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi uu ciyaartoyga Bernardo Silva ka doorbidayo ciyaartoyga Frenkie de Jong oo kooxda Barcelona ayaa rabtay in ciyaartoygan de Jong iibiso inta kadib ay la soo wareegto ciyaartoyga Bernardo Silva oo ay adag tahay inay kooxdu soo iibsato Bernardo Silva iyadoo uu sii joogo kooxda Frenkie de Jong sidoo kale ciyaartoyga kooxda Barcelona ee Pjanic ayaa diyaar u ah inuu mushaharkiisa hoos u dhigo si uu u sii joogo kooxda Barcelona isla wararka kooxda Barcelona ciyaartoygeeda Ricky Puig ayaa la sheegaya inuu heshiis oo dhac la gaaray kooxda La Galaxy ee ka dhisan wadanka Mareykanka haddaba kooxda Barcelona ayaa ilaashan doonta inay hadhow ciyaartoygan dib u soo iibsan karto sidoo kale kooxda Barcelona ayaa ciyaartoygan qiimaha hadhow lagu iibiyo 50% yeelan doonta dhinaca kale kooxda Real Madrid ayaa ku biirtay kooxaha tartanka ugu jira weeraryahanka daayarka ah ee kooxda Red Bull Salzburg ee Benjamin Sesko qodobada kale ee barnaamijkana waxaa ka mid ah in shirkadda caalamiga ah ee EA Sport noqotay kafiilka ama sponsorka rasmiga ah ee horyaalka La Liga laga bilaabo xilli ciyaareedka 2023 ilaa 24 waana heshiis socon doona dhowr sano waxa uu koobsan doona xuquuqda loogooyinka calaamadaha iyo magacaabida haddaba waxa uu horyaalka La Liga ka soo gali doonta heshiiskan 40 milyan oo euro sanadkii oo waxa la filayaa inuu magaca horyaalku noqon doono EA Sport oo waxa la filayaa inuu magaca horyaalku noqon doono EA Sport halka uu markii hore ka ahaa La Liga heshiiskan ayaa haddaba socon doona 5 sano waxa uu qiimihiisu yahay 200 milyan oo euro halka uu soo gaaray kooxda Celta Vigo oo ay si rasmi ah u shaacisay ciyaartoygeeda cusub ee Oscar Menguesa kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Barcelona sidoo kale sida la sheegay ma jiraan wax wada hadal ah oo u dhaxeeya kooxda Real Madrid iyo ciyaartoyga Raúl de Tomás oo kooxda Real Madrid ayaa la xiriirinayay ciyaartoygeedii hore ee Raúl de Tomás oo hadda u ciyaara kooxda Espanyol balse warbaahinta qaar ayaa sheegtay inaana jirin hadda wax wada hadal ah oo u dhaxeeya kooxda iyo ciyaartoyga sida uu daabacay mid ka mid ah majaladaha Catalonia ciyaartoyga Darwin Núñez markii uu ka ciyaari jiray horyaalka La Liga gaar ahaan uu ciyaari jiray kooxda Almeria ayaa waxa loo soo bandhigay madaxweynihii hore ee kooxda Barcelona ee Bartomeu haddaba Bartomeu ayaa doortay ciyaartoyga kale ee ah Braithwaite halka uu uga tagay Darwin Núñez inuu ku biiro kooxda Benfica oo ciyaartoygan Darwin Núñez ee hadda u ciyaara kooxda Liverpool ayaa la sheegay inuu markii uu ka ciyaari jiray horyaalka La Liga uu ku jiray koox ciyaartoydii miiska u saarnayd kooxda Barcelona balse madaxweynihii hore ee kooxda Barcelona ee Bartomeu ayaa doorbiday inuu la soo saxiixdo ciyaartoygii Braithwaite dhinaca kale ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Lille ee Renato Sanchez ayaa ku wareersan kooxdii uu ku biiri lahaa iyadoo ay dalabyo uga imanayaan kooxaha PSG iyo AC Milan haddaba Sanchez ayaan weli go'aan qaadan waxaana la filayaa inuu go'aan qaadan doono kadib marka uu helo dalabyo waafaqaya shuruudihiisa gaarka ah ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ayaa shaacisay inuu ciyaartoygeeda Diego Jota uu kooxda u saxeexay heshiis cusub heshiiskaas oo dhamaanaya sanada 2000 haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe-na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe hana ilaawin inaad soo boqoto barahaan ku leenahay baraha bulshada oo aad ka helaysid linkigooda khaanada description-ka